shaqaalaha sharafta iyo qiimaha badan oo ku xiran Property Show Soomaaliya. Mar kale ku soo dhawaada meel walba adduunka joogtaana waa salaamantiin dhammaantiin. Maanta waxaan idin wadaa su'aalo la soo weydiiyey propertygii aan soo geliyey Syokimau ayaan dhaxdaas iyo Embakasi. Marka waxaa leedahay su'aalo waxay u badnaayeen Nairobi traffic congested waaye, meel magaalada daan ka baxnana waqti dheer ay noo qaadan doontaa sifa magaalada u gaarno. Baabuur haddaa qaadato iyo stuck on traffic ay dhaheen oo matatuyaashana traffic badan jira, waqti dheer ay kugu qaadanaysa magaalada u gaarayso. Marka maanta waxaan idin wadaa marka waxaan idin sheegi rabaa marka dowladda inay ka hirgelisay train oo overground train oo xaafayaasha walba ka soo baxo oo xaafadaadi magaalada ka sii fogo oo sifa magaalada dadka loo keeno. Sida Syokimau camal waxaa ka jira train station, overground train station. Embakasi sidoo kale magde train run as normal, saacada uu shaqeeyo saacad walba, waqti walba uu maraa, waana ka jaban yahay matatuga qiimahiisa trainkiyaaba ka jaban overground trainka. Marka waxaa qaadan karta overground trainka haddaa ka baqayso congestion, baabuurka xaafad iska inaad dhigato oo overtrain soo qaadato trainka ilaa magaalada wuxuu kugu geynayaa nus saac ka yar. Marka congested maba is arkaysaanba, baabuurka xaafadda ugu soo tegi kartaa, matatuna uma baahnid. trainkaas waxda ku soo dhacaysa nus saac ka yar magaaladana wuu ku keenaya. Marka waa ka marka trainki ay idin soo duubay marka idin tusaya. Marka is very easy to get around Nairobi from any corner. So horumar iyo train baa laga helgeliyo overground trainka. Marka I wish inaan maanta overground train xamar tusi lahaa ba taas ma dhacin. Ani ahaan saas ay ila wanaagsan lahayd, but inshallah one day we will reach there. Xamar oo Hargeysa overground train kan idin tusi lahaa kaasaa ka fiicnaan lahaa, but still we didn't reach that. Sababtaan u tusaana inaan sababta aan train tusaa maaha. Su'aala la soo weydiiyey haddaa magaalada ka baxno see magaalada dhaqso u soo gaari karnaa. All over Nairobi is overcrowded and a lot of congestion, traffic. Daraadaas igu kaliftay inaan su'aalahaas ka soo jawaabo aan trainka dadka tus. Haddaana daawato please subscribe. meel walba aad joogtaana maalin oo habeen wanaagsan. Salaam calaykum.